taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu dadaal xoogan ku bixinayaa dhismaha ciidanka soo celinta heybadda iyo sharafta ciidanka qaranka waxaana maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil uu hogaaminayay ay soo xireen tababar muddo 60 cishaha soconayay kaasi oo wax lagu bareeyay koox ka tirsan ururka 77 ee boolis dableyda ilaalada wasaaradda gaashaandhigga ciidanka tababarka qaatay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen sida gaadaka ciyaarka salaan sharafta iyagoona halkaasi salaan ku siiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ururka 77 ee boolis dableyda gaashaanla dhexe macalin barre maxamed macow ayaa warbixin ka siiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka tababarkan maanta la soo xiray taliya dufcada ugu horeysa maaha waa dufcadii afraad ee halkan lagu tababaro loona tababaro salaan sharaf taliya ragana u jeedid waxay askartan u jeedid waxay tababarahayeen muddo 60 casho ah ee inta aad u jeeday ay soo bandhigayeen ay ku soo qaateen waxaana tababaray macalinka halgamaaga ah ee agteena ku weyn taliye taladaadi aheeda iyo waajibaadkayga ahaa waa qaadanay waxaana u fulinay sidii loogu talagalo haddaba aad u jeedo oo aheeda in la hormariyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa askartan ku amaanay sida ay ugu faa'iideysteen waxyaabihii ay barteen intii uu tababarka socday waa idinku amaana runtii waqti yar oo kooban in waxyaabihii hadda aad halkan ku soo bandhigayseen ee ku saabsanay tababarkii aad qaadateen runtii taas waxayna tusinaysaa muhiimad gaar ah sida aad u siinaysiin casharada idin socday hab maamuusku ama salaan sharaftu waa qayb muhiim ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababarka uu qaata qayb ka ah sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in gacan ay ku dhisan doonaan ciidanka xoogga dalka gacanta kalena ay waajibaadkooda qaran ku qabsan doonaan ugu dambeyntiina waxaana halkaasi shahaado ka turjumaysa waxyaabihii ay barteen gudoomay askartii maanta tababarka loo soo xiray waxaa qasab nagu ah marka oo muhiimad gaar ah inaan siino u baahan marxaladda aan ku jirno anigoo dareensan gacanna inaan hawl maalmeedkeena aas-aasiga ah ku qaaban gacanna inaan adeegyadii iyo shaqooyinkii qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay naga sugayeen aan ku qabanno gacanna aan ciidankeena ku dhisan qasab xaalad kasta ee aan ku jirno uma jiifanayno hadday xun tahayna hakad nagama gelinayso hawlaha ay ahayd inaan qabanno hadday wanaagsan tahay waaba sidaan rabno waa sii xoojinaynaa tababarada noocan oo kala ciidanka xoogga dalka waxa ay ugu tala galeen in soo loogu qaado aqoonta iyo sidoo kale xirfadaha kale ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdi Fataax Cabduqaadir Akhyaar SNA Radio magaalada Muqdisho